halkan waa tilmaan TV akhayta qadarada qiimaha mudan aad nagala socotiin haddii aad markuu ugu horeysay boggan fadlan subscribe ku sameeyo YouTube tilmaan TV saado noqoto ruuxa ugu horeeya la socda wararka warbixinada waraysiga aan qabano hadda markuu sameeyay mahadsanid wararka caaw waxaad ku maqli doontiin xaaladihii ugu dambeeyay bariga dhexe hanjabaada Donald Trump iyo jawaabtii ay ka bixisay Iran iyo Xasan Sheekh oo sheegay inuu wada hadal diyaar u yahay kadib markii uu yiri hal sano ayaan ku darsaday xilkii wuxuu naga dhacayaa ayuu yiri 15 bisha May 2027 kadib markii ay soo farageliyeen beesha caalamka oo quudisa Soomaaliya magaalada Boorame gobolka Awdal ayaa waxa ka bilowday iyadana banaanbaxyo kacdoon looga soo horjeedo maamulka gobolka ee Somaliland ee isu dhiibay Yahuuda iyadana warbixin ayaan idinka haynaa intaasi waa warka madaxdiisa hadda warka tilmaan TV oo fidsan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hogaamiyaasha dalalka khaliijka inay ka codsadeen inuu dib u dhigo weerar military oo ay dawladda Mareykanka ku qorsheynayso inay ku qaado Iran maalinkii shalay iyadoo uu tilmaamay in dadaalo diblomaasiyadeed oo xoogan ay hadda ka socdaan si xal siyaasadeed loogu gaaro xiisadda si kordhaysa ee gobolka Trump ayaa sheegay in amiirka Qatar Tamim bin Hamad Al Thani iyo dhaxal sugaha Saudi Arabia Mohammed bin Salman iyo madaxweynaha United Arab Emirates Mohammed bin Zayed ay si wada jir ah uga codsadeen in la siiyo fursad wada socda halkii ay si degdeg ah loo qaadi lahaa weerar military oo aan qorsheeyay ayuu yiri sida uu sheegay Trump sababta ugu weyn ee dib loogu dhigay weerarka ayaa inay jiraan wada hadallo culus oo rajo wanaagsan laga qabo isla markaasina madaxda khaliijku ay aaminsan yihiin in wali ay suurtagal tahay in la heshiiyo wuxuu tilmaamay in heshiiskaas uu noqon karo mid ay wada aqbali karaan Mareykanka dalalka bariga dhexe iyo dhinacyada kale oo caalami ah hadalka Trump waxay muujinaysaa in xilligan ay socdaan dadaallo xoogan oo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in looga fogaado dagaal cusub oo gobolka ka dhaqarxa hogaamiyaasha khaliijka ayaa si weyn uga walaacsan suurtagalnimada isku dhac military oo toos ah oo dhexmara Mareykanka iyo Iran maadaama dagaal noocaas ah uu saameyn weyn ku yeelan karo amniga dhaqaalaha iyo shidaalka gobolka bariga dhexe Trump ayaa sidoo kale sheegay in heshiiska la filayo inuu si cad u damaanad qaadi doono in Iran aysan yeelan doonin hub nuclear ah arinta barnaamijka nuclearka Iran ayaa muddo dheer ahayd qodobada ugu weyn ee muranka u dhaxeeya Tehran iyo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo xulfadiisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa inta ku daray inuu amar ku siiyay xogayaha gaashaandhigga Peter Hegseth taliyaha guud ee ciidanka Mareykanka Daniel iyo ciidamada qalabka sida inay si ku meel gaar ah loo hakiyo weeraro qorsheysan oo la sheegay inuu ku qaadi lahaa shalay si kastaba Trump wuxuu si cad u sheegay in ciidamada Mareykanku ay wali ku jiraan heegan sare isla markaasina ay diyaar u yihiin inay si degdeg ah u qaadaan weerar ballaaran oo ka dhan ah Iran haddii ay wada hadalladu fashilmaan ama aan la gaarin heshiis lagu qanco labada dhinacba Iran oo ka jawaabtay hadalkii Donald Trump ayaa waxay sheegeen in Iiraaniyiintu ay diyaar u yihiin ciidan ahaan weerar kasta oo yimaada Mareykan waxayna sheegeen inay weeraradaasi ka jawaabi doonaan iyagoo oo isticmaali doona hub nooca ugu dambeeyay oo ay Iiraaniyiintu haystaan waxaa hadlay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Ismaaciil ayaa sheegay in dawladda Iran aysan marnaba ka tanaasuli doonin xaq ay u leedahay bacriminta macdanta uraniumka iyo sameynta nuclearka wuxuuna sheegay inay tahay mid ay xaq u leeyihiin wuxuuna kaloo sheegay in ay Iran ay diyaar u tahay dagaal kasta iyo aggression weerar kasta oo lagu soo qaado jawaab adagna ay ka bixinayso waxa aad looga walwalsan yahay dagaalka hadduu dib u bilowdo in Iiraaniyiintu ay mar kale iyaguna ay weeraraan wadamada khaliijka weerarada Iran ku qaaday wadamada khaliijka ayaa wuxuu dhaawacay dhaqaalahooda waxa hoos u dhacay saliidii ay dhoofin jireen waxayna Iran weerareen dhammaan saldhigyada Mareykanka oo ku lahaa wadamada khaliijka sida ay shaacisay warbaahinta CNN waxay sheegeen in khasaaraha soo gaaray saldhigyada Mareykanka ay ka balaaran yihiin inta uu Mareykanku sheegay waxay sheegeen in 80% saldhigyadaasi ay Iiraaniyiintu plastic misaal dhaceen oo dhulka la simeen waxayna qaadan doontaa muddo 10 sano in dib loo dhiso saldhigyadaas ciidamada Mareykanka ayaa ka qaxay saldhigyadaasi oo ku dhuuman jiray hoteelada ay shacabku degan yihiin waxaana laga cabsi qabaa haddii dagaalku mar kale dib u bilowdo in Iiraaniyiintu ay dagaalka xoojiyaan plastic misailka ay haystaana oo gantaal aad u awood badan ah ay ku garaacaan Tel Aviv iyo dhammaan wadamada khaliijka ilaa ay hadda Mareykanku wuxuu ka wareegayaa in foolka oo dagaal kale la gala Iran waa markii labaad
ay kordhiyaan xabad joojinta waana markii saddexaad ay dhahaan waan ka noqonay inaan dagaal qaadna ayaan rabnay arrintu sidii hore loo maray maaha Iiraan ma aha wadan sahlan waxayna u babacdhigeen tuseena inay isdifaaci karaan Mareykanka iyo Israa'iil oo isticmaalay hubka ugu dambeeyay waxa kale oo ay cashar u dhigeen oo ay garaaceen wadamada khaliijka oo iyagu nacamlayaal u ah Trump iyo Mareykanka Iiraan waa wadan cunaqabateyn ay saarneed in ka badan 47 sano oo dhaqaale ahaan iyo tiknoolaji ahaan la dagaalamay laakiin waxay isku tashteen waxayna soo saareen hubka ugu khatarsan ee plastic missile-ka oo iyagu gacanta ku sameystaan mar walbana wuxuu ku celceliyaa Donald Trump inay burburiyeen awoodda Iiraan laakiin ay hadalkaas waxba ka jirin oo Iiraan ay mar walba ay dhahaan waan burburinay gantaaladii Iiraan ay aad u garaacayeen Tel Aviv iyo meelaha kale haddana Iiraan waxay sheegtay inay mar kale diyaar u tahay inay cashar adag u dhigto Mareykanka iyo Israa'iil oo ku soo duulay wadanka Iiraan haddii wararka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo beesha caalamka u sheegay inuu diyaar u yahay wada hadal lagu gaari karo xal madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inuu mar kale ku baaqay in la furo wada hadallo siyaasadeed oo u dhaxeeya dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee ku midaysan golaha mustaqbalka xilli ay sii xoogeysanayaan khilaafka la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo jihada mustaqbalka siyaasadda dalka warar lagu kulsay ayaa tilmaamay in madaxweynaha hore ee Soomaaliya ee xilgiisu dhamaaday oo arrintan kala hadlay safiirada beesha caalamka gaar ahaan kuwa Mareykanka Ingiriiska iyo midowga Yurub xilli uu maalmahan kulamo kala duwan kula yeeshay magaalada Muqdisho talaabadan ayaa timid kadib hadal uu madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ka jeediyay munaasabad dadweyne taasi oo uu ku sheegay in muddada xilka ku eg yahay 15ka bisha May 2027 taasi oo macnaheedu tahay inuu ku darsaday hal sano oo dheeraada hadalkaas ayaa sababay falcelin siyaasadeed oo xoogan gaar ahaan dhinaca mucaaradka oo u arkay inuu xambaarsan yahay fariimo siyaasadeed oo muran abuuri kara ilo wareegto siyaasadeed ayaa sheegay in madaxweynaha hore ee Soomaaliya ee xilligiisu dhacay Xasan Sheekh Maxamuud uu safiirada u cadeeyay inuu diyaar u yahay wada hadal toos ah oo lagu xalinayo khilaafaadka taagan isla markaasina uu doonayo in dib loo bilaabo wada hadallo u dhaxeeya dowladda waqtigeedu dhacay iyo mucaaradka si loo gaaro isafgarad siyaasadeed si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta ku jira golaha mustaqbalka ayaa la sheegayaa inay si adag u diideen baaqaas iyagoo ku tilmaamay mid aan horseedi karin xal dhab ah isla markaasina dib u dhac ku yimid dadaalada siyaasadeed mucaaradka ayaa dhinacooda ka eedeynaya in hanaanka doorashooyinka iyo maamulka siyaasadeed lagu wareejiyo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo oo ku doodaya in kalsoonidii siyaasadeed ee lagu qaban lahaa doorasho heshiis lagu yahay ay baabaaday xiisad cusub ayaa ku soo beegmaysa xilli ay sii kordhayaan baaqyada caalamiga ah ee ku saabsan in dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay isugu yimaadaan miis wada hadal si looga hortago khilaaf siyaasadeed oo saameyn ku yeesha geedi socodka dowladnimada Soomaaliya horseedi karana in dagaal sokeeyo ka bilowdo Soomaaliya oo muddo dheer dowlad dhiskeeda la soo waday laakiin ay rajadeedu aad u xun tahay hadda iyo Boorame shalay waxay ahayd bisha 18 May waa markii ay gobolada waqooyi sheegeen ama maamulka gobolgoosodka ee la magac baxay Somaliland ay sheegeen inay ka go'een Soomaaliya waxay u dabaaldegayeen 35 sano ka soo wareegtay laakiin midaasi waxa beeniyay oo ka soo horjeestay oo banaanbax weyn ka sameeyay magaalada Boorame shacabka iyo dhalinyarada Boorame oo ku tilmaamay maamulka gobolgoosodka inay la safteen Yahuud kana soo horjeedaan ummadda Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka labadaba waxayna ku sheegeen inay rabaan inay Soomaaliya la midoobaan waxayna qaadayeen ama lulayeenba calankii Soomaaliya ee xidigta shangeeska lahaa ee buluuga ayay Boorame ku dhaxlumayeen iyagoo qaadaya heestii wadaniga ahayd ee Soomaaliya toos isku tiirsada waxa halka ka muuqata in gobolada Awdal aysan marnaba taageersaneen kala go'a Soomaaliya gobolada dhowrka magaalo ee ay nimankan reer waqooyigu degaan waa Burco Hargeysa iyo Berbera baa laga taageeraa kala go'a Soomaaliya laakiin gobolada Sanaag iyo Awdal waa laga diidan yahay in Soomaaliya laga go'o waxa hadda ka baxay halkaasi maamulka la magacaabay waqooyi bari ee Soomaaliya lana oran jiray Khartoum State oo maamul samaystay haddana ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo ay rajada halkaas ku burburtay inay dib ugu noqdaan maamulka ilaa ay haddana nimanka reer waqooyiga ee gobolgoosodka waxa laga haystaa maxaabiis ka badan 500 oo ruux
xaaladdu way cakaran tahay dhinaca awdal shacabka reer awdalna way ka soo horjeedaan maamulka ciro iyo in wax xidhiidh lana sameeyo ama aqoons laga raadiyaba yahuudda oo xasuuqday 170,000 oo shacab oo Falastiiniina 40,000 oo caruurana halka ku dishay magaaladii Gaza dhulka la sintay ilaa ay haddana weli duqeyn ku wada waxa kale oo yahuuddu weerareen Lebanon oo ay dileen 3,000 oo ruux waxa kale oo ay weerareen Syria iyo meelo kaleeto ilaa ay hadda yahuud waxay wadaan xasuuqa dadka muslimiinta waxa lagu eedeynayaa cirana inuu dhiigga muslimiinta ka raadinayo aqoonsi aan meelna gaarayn Soomaaliba iskale mana kala go'ayso ayay dadku ku dhawaaqayeen halka warka kala socotiin oo warbaahinta Tilmaan TV waa TV-gani cid go'na ma taageero cid go'na ma waxaan ummadda Soomaalidu dhaxaynaa waxaan toos ku daarnaa meeshii dhibka jirsan waxa loo qabto ku xidhno Tilmaan TV la soco Tilmaan TV